midowga Afrika ayaa isniintii ku balansaneed furitaanka wadahadalada nabadeed ee Itoobiya. midowga Afrika ayaa sheegay in wadahadalada nabadeed ee lagu xalinayo dagaalka ka socda dalka Itoobiya ay maalinta isniinta ka bilaabmi doonaan dalka Koonfur Afrika kadib ballanqaadi ay sameeyeen dowladda Itoobiya iyo mas'uuliyiinta Tigray oo sheegay inay ka qayb galayaan kulankaas. dowladda Itoobiya xulfadeeda oo ay ku jiraan ciidamada militariga ee Eritrea ayaa tan iyo dabeeqadii sanadkii 2020 kula dagaalamay kooxda TPLF waqooyiga dalka Itoobiya. dagaaladan ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, malaayiin qofna waa ay ku barakaceen, halka boqolaal kun oo kalena ay qarka u saaran yihiin inay soo food saarto macluul baahsan. golaha ammaanka ee nabadda ee midowga Afrika ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ballanqaadadii labada dhinac ee ahaa in si dhab ah looga wada qayb qaato geedi socodka nabadda. Redwan Hussein oo ah la taliyaha amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in dowladda ay ka qayb gali doonto wadahadalada hogaaminayo midowga Afrika oo dhacaya 24 bishan Oktoobar. Kindeya oo ah hafayeenka ciidamada Tigray ayaa isaguna isla markii ka jawaabay arrinta. wadahadalada nabadeed ayaa lagu wadaa inay bilowdaan maalmo kadib markii ciidamada Itoobiya iyo xulfadooda ay la wareegeen 3 magaalo oo waaweyn oo ku yaala gudaha gobolka Tigray.